بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إلهي سبحانه وتعالى diinta islaamka waxa uu ka dhigay diin dadka ugu wacda anshaxa iyo dabeecadda fiican. waxay mar walba dadka u tusaalaysaa ama ay amartaa waxyaabaha ay ku gaaraan khayrka iyo wanaagga adduunkii aakhiro. diinta islaamku waa diin mar kasta soo dhowaysa waxa dadka wanaagga iyo khayrkooda ku jira. wax walba oo dadka mu'allafa iyo isku soo dumid iyo maxabo ku abuurta waxay mar walba kala dagaalantaa dabeecadaha xunxunka ah iyo waxyaabaha bulshada aan ku fiicnayn. diinta islaamku waa diin ilaahay uu u doortay mujtamaca in lagu wanaajiyo. waa diin loogu talagalay inuu rabbi dadka uu ugu taam yeelo makaarimta akhlaaqda iyo dabeecadaha fiicfiican. sidaa darteed waxaa ka mid ah mawduucyaalka aan rabna inaan maanta ka hadalno, kaasoo ku saabsan danniga iyo malaha xun oo dadka muslimiinta ay isku dhex qaadaan, iyo in allaale inay bulshadu noqoto dad ka wanaagsan dabeecadaha qabiixa ah. matalan bulshooyinka iyo guryaha inay noqdaan guryo lagu dhaqo saliimnimo iyo wanaag. matalan naag nin qabtaa inaysan dibadda aadin amase waxyaabo kale aysan samaynin sida dhacda beryahan dambe, ama rabbi subxaanahu wa tacaala taasna ay tilmaamayso in diintiisa looga fogaado. ilaah wuxuu yidhi asagoo dadka mu'miniinta ah amraaya amar fiican kana reebaya waxyaabo xumaato badan, ayuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu, war dadka iimaanka laga helay, war idinka waayo dadka ay waanada anfacdee dhegaysta, waxbaa laydinka reebi doonaaye. war dadka iimaanka lahow, waa idinka dadka mar walba u diyaarka ah inay fuliyaan awaamirta ilaahay. yaa ayuha aladiina aamanuu, dadka iimaanka leh hadday maqlaan dhagahay soo raariciyaan, hadday jiifeen ayay fadhiistaan, hadday fadhiyeen ayay soo istaagaan. waxay diyaar u yihiin inay fuliyaan waxa la amri doono ama ay ka tagaan waxyaabaha laga reebi doono. waayo yaa ayuha aladiina aamanuu, ama waxbaa lays amraa ama waxbaa laga reebaa. dadka iimaanka leh hadday maqlaan yaa ayuha aladiina aamanuu, farxad iyo raynrayn uma dhinna. magaca ugu fiican ee qof loogu waco ayaa loogu wacay waa iimaanka. axad qiimo badan ayaa u yeeray waa ilaah subxaana wa tacaala. maca daalika ayay mu'miniinta mar walba waxa ay raacaan awaamirta ilaahay. yaa ayuha aladiina aamanuu, war dadka iimaanka laga helayow, ijtanibuu kahiiran min aldanni, waxaad ka fogaataan oo aad ka dhaqaaqdaan wax badan oo malaha ah. waxa ayaan u maleeya ka taga, ayuu yidhi ilaahay. ijtanibuu kahiiran min aldanni, waayo ina bacda aldanni ithm, malaha qaarkiis waa dembi. haddii diinta alla uusan ku salaysnayn ama waxyaabaha la tilmaamay uusan ahayn, dembi ayuu noqdaa. ina bacda aldanni ithm, malaha qaarkiis waa dembi, ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. walaa tajasasuu, war dadka iimaanka lahow ha isjaasuusinina,
war hadalaha iska kala qaadinina, ha noqonina dad bulshada xumaata iyo colaad ku abuura. walaa tajasasuu walaa yaktab bacdukum bacdaa, qaarkiina yuusan qaarka kala xamanin, ha isxamanina ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. waayo xantu waa shay mamnuuca, waa wax aan la ogolayn, waa dabeecadaha xunxunka ah oo ilaah diidee. walaa yaktab bacdukum bacdaa, qaarkiin yuusan qaarka kala xamanin. waayo ayuxibu axadukum an ya'kula laxma akhiihi maytaa, axadkiin ma jecel yahay inuu cuno walaalkiis hilibkiisa oo meyd ah, walaalkaa oo dhintay hilibkiisa asagoo meyd ah inaad cunto ma jeceshihiin ayuu yidhi ilaahay. ayuxibu axadukum an ya'kula laxma akhiihi maytaa fakarihtumuuhu, waad karahsateen arrinta, waad nacdeen walaalihiina oo meyd ah inaad cuntaan hilbahooda, iska daa ayagoo meyd ahee ayagoo nool xataa. fakarihtumuuhu, waad karahsateen ee wattaqullaaha, ilaahay ka cabsada. waayo xantu arrintaa ayay la mid tahay. ilaahay waa alla tawaab ah oo towbada aqbala, haddana naxariis badan subxaana wa tacaala. haddaba aayaddu waxay noo tilmaantay arrimooyin fara badan oo haddii layska dhaafo bulshadu ay ku wanaagsanaanayaan, haddii lagu camal falo ama la sameeyana dadka shaxna iyo colaad iyo dhibaato iyo kala go' ku abuuri karta. maca daalika ayuu ilaah yidhi ijtanibuu, ka fogaada oo ka dhaqaaqa arrimooyinkaasoo dhan. haddaba malaha aad iyo aad ayay u xun tahay. dadku maantu waxay noqdeen dad malaha ku camal fala. abi hurayra rasuulku wuxuu ka wariyey inuu nebigu yidhi iyaakum wadanna, waxaan idin kala digayaa idinka iyo malaha. saasay ila tahay, waxaasaan u maleeyaa hebel inuu saas yahay ayaan u maleeyaa. waa wuxuusan sixadiisa iyo sida ay tahay ogeyn, weligiis waxuusan maqlin. maca daalika ayuu yidhi nebiga iyaakum wadanna, waxaan idinkala digaa oo aan mar walba rabaa inaad ka fogaataan malaha. waayo fa ina adanna akdabu alxadiid, malaha waa hadal lagu hadlo midka ugu been badan, midka ugu xun waa malaha ayuu yidhi nebiga. sidaa darteed iska ilaaliya. saasaan u maleeyaa, saasay ila tahay, waa wuxuusan sixadiisa iyo waxa ay tahay ogeyn, asagoo raba inuu dadku nusqaamiyo, asagoo raba inuu dadku colaadiyo. xaaladda noocaasa waa mamnuuc, iska ilaaliya ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. maca daalika dadka iimaanka leh mar walba waa inay malaha iska ilaaliyaan. waa shayga la maleeyo oo qofku uusan markaa ogeyn. hadday dhacda inuu qofku qof ammaanayo ama uu raba inuu ka warbixiyo ee uu raba inuu ammaantiisa sheego, ha yidhaahda ayuu yidhi nebiga hebel saa ayay ila tahay. waa haddii xasiibadiisa iyo sida ay tahay ee xaqiiqda uu haysto, laakiin ilaahay ayaa wax xisaaba. falaa tusakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqaa, ilaahay ayaa ku cilmi badan, ilaahay ayaa yaqaana qofka taqwada iyo alla ka cabsiga ku dheere. nafafyaalkiina ha nadiifinina, naftiina ha tahirinina, naftiina ha ka dhigina kuwa sareeya oo dadka kale aad u aragtaan inay yihiin kuwa markaa malaxun loo qaado. xaaladaa joojiye ayuu yidhi nebiga. maca daalika qof walba anshaxa iyo wanaagga iyo usluubta diinta islaamka ayaa waxay ka mid tahay dadka inaan ceebahooda la raaraadinin, inaan markaa laisjaasusin oo qof walba qofka kale ceebtiisa uu kaga mashquulo. rasuulku wuxuu yidhi laan janno iyo tuuba waxaa iskale qof walba oo ceebtiisa ku mashquulay, kana mashquulay ceebaha dadka. dadku maanta waxaad u malaysaa in la yidhi ceeba ma lihidiin, ee dadka kale ayaa ceeba leh ee raaraadiya. qof walba qofka kale ceebtiisuu raadinaa. hadduu ceeb u waaye waxaan wax ka jirin ayuu u yeelaa, hadduu u waaye dana xun ayuu u qaadaa. xaaladaha noocaasa waa waxaan la ogolayn. muslimiintana waa inay iska ilaaliyaan xaaladaha ilaahay diiday subxaanahu wa tacaala. maca daalika mar walba qofku waa inuu sidaa ahaado, waa inuu cadaaladda iyo khayrka ku socdo, waa inuu mar walba naftiisa ku mashquulo ceebteeda. ileen qofku wuxuu ahaa qof alla subxaanahu wa tacaala khalqay. meesha laga qalqay iyo meesha lagu qalqay iyo waxa lagu abuuray ama laga abuuray ayaa xaalo cajiib badan oo dhammaantoodba tusin karta ceeb socota bani aadamka inuu yahay. taa ayay markaa tilmaamaysaa. qofku waxa uu soo mara marka uu dhalanayo meel ay
najaasa soo marto marka uu uurka hooyo ku jira dhiig dhexdiisa ayuu ku jiraa riximka inta uusan soo gelin waxa uu soo maraa amaakin noocaas ah maca daalika ayuu ilaah wax walba ku cilmi badan yahay ee ilaahay uu yidhi rabbi waa idin ogaa id antum ajinnatun fii butuuni ummahaatikum wakhti aad ku qarsoonaydeen hooyooyinkiina caloolaheede falaa tusakuu anfusakum naftiina ha ammaanina naftiina ha tahirinina naftiina ha qiimaynina mar walba ilaahay ayaa yaqaana qofka khayrka iyo wanaagga leh war dadka waa inay mala fiican isku qaadaan malaha la diidaayo waa malaha xun qofka kale waa inuu mala fiican u maleeyaa haddii walaalkaa agtiisa ay arrinkaaga timaado isla markii ha duulin mar walba mu'miniinta khayr iyo wanaag u maleey caaisha ayaa lagu been abuurtay oo la yidhi way sinaysatay radia allaahu tacaala canhaa waa sawjadii nebiga waa gabadhii cafiifadda ahayd khayrka iyo wanaagga u saaxiibka ahayd waxaa loo tilmaamay ama lagu sheegay inay zaaniyad tahay dadkii xaaladiyay qaadeen waxay ogaan waayeen khayrka iyo wanaagga ay leedahay guriga qiimaha badan ay degan tahay xaaladahaasoo dhan ayaa ka qarsoomay ilaa ilaah uu yidhi subxaana wa tacaala maxay mu'miniinta ugu malayn waayeen nafafyaalkooda khayr iyo wanaag walowlaa id samictumuuhum danna almu'minuun mu'miniinta iyo mu'minaadkaba maxay nafafyaalkooda khayr iyo wanaag ugu malayn waayeen oo ay u dhihi waayeen haadaa buhtaanun cadiim arrintan waa buhtaan iyo been abuurasho weyn naftooda ayaa la yidhi waxaa loola jeedaa walaalahood haddii ceeb lagaaga soo sheega walaalka waxaan jirin hadduu kaaga yimaado arrintaasoo dhan ha rumaysanin mar walba xataa haddii ay jirto adigoo sixadeeda iyo sida ay tahay iyo xaqiiqdeeda ogaanin qofka walaalkaa ah xumaan ha u daninin danniga xun aad iyo aad ayuu u xun yahay ilaahayna maraali kama ahan subxaana wa tacaala maca daalika qofka walaalkaa ah 70 danni u qaad oo mar walba oo xumaan ay kaaga timaado amuusan saa ula jeedin dheh ee dhanka fiican markaa wax ka maleeya nimanka munaafiqiinta ah ayaa mar walba danni iyo mala xun qaadee dadka iimaanka leh xaaladaa laguma yaqaano yadunnuuna billaahi hayra alxaqi waa danna aljaahiliya waxay u maleeyeen ilaahay waxaan xaq ahayn waa jaahiliga malihiisa ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala waxay u maleeyeen hayra alxaqi waa danna aljaahiliya waa jaahiliga waxyaabaha ay maleeyeen maca daalika malaha noocaas ah aad iyo aad ayuu u xun yahay waa in dadka diinta ay raacaan xaqa ay fuliyaan oo dadka muslimiinta ah ay u arkaan inay wanaag iyo khayr ku socdaan war wax kasta iska daaye waxaa nala amray inaan walaalahayn danni xun u qaadin waxaa nala amray inaan wanaagga iyo qalbiga u wanaajino waxaa nala amray inaan khayrka iyo diinta ku dadaalno rasuulku wuxuu yidhi innakum laa tasacuuna annaasa biamwaalikum war idinka dadow dadka ma gaarsiin kartaan maalkiina xoolihiina kuma deeqi kartaan walaakin liyasacahum laakiin waxaad ku deeqdaan xaggiina ha ahaato basdiga iyo fiditaanka wejiga loo fidiyo waa basdul wajhi iyo waxusnulkhuluqi dabeecadda wanaagsan mar walba dadka maalkiina ma ku deeqdaan ma kala gaarsiin kartaan laakiin furfurnaanta wejiga bashaashnimada xaaladaha noocaas ah aad iyo aad ugu dadaala ayuu yidhi nebiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayh haddaba dadka in la wanaajiyo khayr iyo wanaag ayaa ku sugan rasuulku wuxuu yidhi yaa ayuha annaas war dadkaanow salaanta faafiya oo wasilul arxaama qaraabada xiriiriya wa atcimu aطacaama tacaamka quudiya oo masaakiinta ku taageera wasalluu bileyli habeenkii dugta waannaasu niyaam marka ay dadku hurdayaan tadkhulu ljannata bisalaam jannada ayaad badbaado iyo wanaag ku gelaysiin wardadow salaanta faafiya maxaa loola jeedaa salaanta faafiya waxaa laga wadaa salaamtu waa nabadgeliye isbadbaadiya war qofku markuu assalaamu calaykum waraxmatullaahi walaalkiis uu yidhaahdo waxaa loola jeedaa danni xun kuu qaadi maayo afkayga iyo adinkaygaad ka ammaan helaysaa wax dhibaato ah oo aan ku gaarsiinayaa ma jiro maca daalika salaamtu macnaheedu waa sidaa waa isim ama magacyaalka alla ka mid ah rabbi ayaa ugu deeqay dadka khayr iyo wanaag iyo barakay ku gaaraan ee yaa ayuhannaas dadkanow afshu salaame salaanta faafiya ayuu yidhi waxaa nasiib daro noqotay maanta
inaan assalaamu calaykum isdhahno, maca daalika aanan isnabadgelinin, oon isxamano, oon isdilno, oon isdhacno, oo dadka malaxun loo qaado, oo mashaakilaad badan la sameeyo. xaaladda noocaasa waa waxaan loo baahnayn. ee dadka iimaanka lahow salaanta ka run sheega, salaanta dhexdiina ku faafiya. rasuulku wuxuu yidhi jannada alla geli maysaan ilaa aad rabbi ka rumaysaan, rabbina rumayn maysaan ilaa aad iska jeclaataan. ee ma idin tusiya shay haddii aad fashaan aad isku jeclaanaysaan? afshu salaama baynakum, dhexdiina salaanta ku baahiya. war nabadgelyada dhexdiina ku faafiya. war idinka is-ammaangeliya, afka iska iraahda, xibnaha uga shaqeeya, qalbiga ha idinka ahaato ayuu yidhi nebiga. bacdamaanan rabbi rumaynayn ama aan janagelaynin ilaa inaan rabbi rumayno maahane, rabbina aan rumaynaynin ilaa inaan isjeclaana maahane, aanana isjeclaanayn ilaa inaan issalaamna maahane, ayaa korkeena waxaa waajib ku ah inaan salaanta faafino, inaan dadka dhexdooda salaanta ku baahino. rasuulku wuxuu yidhi qof allaala qofka khayr iyo wanaag raba waa inuu 3 waxyaabood sameeyaa. naftiisa waa inuu u garsooro, cadaaladna u sameeyo, waa inuu salaamo qof walba oo ka hor yimaada, qofka uu yaqaana iyo qofka uusan kasayn oo markaa muslimiinta ka mid ah. maca daalika salaantu waxa ay ka mid tahay arrimooyinka noocaas ah. rasuulku wuxuu yidhi muslimka kale xaqa uu ku leeyahay waa 6 waxyaabood, riwaayadna 5 ayay tilmaantay. midda koowaad, mar walboo aad la kulanto waa inaad salaanto. mar allaala marka uu kaa hor yimaado salaan, waxaad ku salaamaysaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi ha ahaato. waxyaabaha kale ee laysku salaamaa waa waxaan waxba ka jirin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi waa salaanta loogu talagalay dadka muslimiinta inay isku salaamaan. subax wanaagsan ayaan salaan ahayn, waa ku salaamay ayaan salaan ahayn. waxyaabaha kale ay isku salaamaan, shabaabka cusub ayaan salaan ahayn, viyaan kugu salaamay, w ayaan kaaga qaaday. waxyaabaha la midka ah kulli waa waxaan diinta islaamka waafaqsanayn. walaalka haddaad la kulanto waa inaad dhahdaa assalaamu calaykum waraxmatullah. nebiga nin ayaa u yimid, markaasuu yidhi assalaamu calaykum. 10 ayuu yidhi nebiga, waa fadhiistay. nin kale ayaa yimid, markaasuu yidhi assalaamu calaykum waraxmatullah. rasuulku 20 ayuu yidhi, ninkii waa fadhiistay. nin saddexaad ayaa yimid, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ayuu yidhi. rasuulku 30 ayuu yidhi. maxaad ula jeedaa ayaa la yidhi. assalaamu calaykum waa 10 ayuu yidhi, waraxmatullaahi waa 10 kale, wabarakaatuhuna waa 10 saddexaad. maca daalika qofku hadduu intaa isu daro wanaaga iyo khayrka ayuu gaaraa. ilaah wuxuu yidhi waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw ruduuha. haddii la idin salaamo, haddii la idin taxiyeeyo, haddii dushiina salaan lagu soo tuuro, waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha, waxaad ku salaantaan axadkii idin salaamay salaantuu idinku salaamay mid ka fiican oo ka qiimo badan oo ka wanaag badan. assalaamu calaykum keligeed hadduu ku dhaho wacalaykum assalaam waraxmatullaahi u dhammaystir. haddaba taa mid ka fiican ku salaama aw rudduuha, ama tiisii oo kale u celiya ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. haddaba dadku waa inay xaaladaa fuliyaan. mar walboo walaalkaa aad la kulanta waa inaad salaantaa ayuu yidhi nebiga. rasuulku wuxuu yidhi mar allaala marka uu bukado ama uu jiraduu sariirta koro amase uu cisbitaalka aado waa inaad booqataa, salaanna aad ugu tagtaa. inaan salaana dadka jiran ayaa nala amray. khayr iyo wanaag ayaa lagu gaaraa. maxaan dad salaanaa maanta? maxaan assalaamu calaykum dhahnaa? maxaan dadka ku soo booqanaa guryahooda? dadkii oo dhan danni xun iyo mala xun ayaa laysku qabaa. deris aaminsan ayaan jirin maanta, beelbeel aaminsan ayaan jirin maanta, oo midkoodka kale hadduu khayrka u sheego u maleeya dana kale inay jiraan. aakhiru zamaanka waxaa imaan doona dad aan naseexaynaynin, naseexadana necban, sida rasuulku tilmaamay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. naseexada wax kale u arka. war qoom aan isku naseexaynin, dadka naseexaynaayana aan jeclayn, alla agtiisa khayr iyo wanaag ay ku leeyihiin male. walaalayaal isku naseexeeya. war dad is-aaminsan oo walaalo ah noqda. war dad qalbigooda khayrka iyo wanaaga ugu jiraa noqda. qof walba kan kala danni xun yuusan u qaadin, qof walba kan kala danni wanaagsan
ha u qaado xaaladaasaa wanaag iyo khayr lagu gaaraa. derisyaalkiiyaan is-aaminsanayn, nimankii iyo naagihii isku dhaxay ee xaasaska isku ahaa ayaan is-aaminsanayn. maanta ilmihii iyo waalidkii ayaa kala ammaan baxay oo kala ammaan beelay. xaaladaasoo dhan waxay keliftay ama sabab u ah diinta ilaahay oo laga durqay. walaalayaal, diinta alla u soo noqda. war ayadaa dhibka iyo rafaadka looga baxaa, ayadaa dadka walaalay soo midaysa, ayadaa dadka ka korisa dhibaatada iyo kurbada. war aws iyo khasraj 80 sanay dagaalamayeen, waxay ku socdeen dagaal aad iyo aad u ba'an. dagaalkay isgaarsiiyeen dagaal aan la soo koobi karin taariikhda ayuu ahaa, ilaa nebiga ay aamineen salawaatullaahi wasalaamuhu calayh, ilaa ay qalbiga gashteen inay axaadiista ku dhaqmaan, inay aayadaha alla ka run sheegaan, inay xaqa iyo diinta ku socdaan, ilaa ay dhex martay maxabba iyo jacayl. wanaagga dhex maray aan weligood la arkin, ilaa alla uu yidhi wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu. war qabsada xariga ilaahay dhammaantiin iyo idinkoo wada jira, tafaraaruqa kana ka taga, ha kala tegtegina ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu wadkuruu nicmata allaahi calaykum. war waxaad xusuusataan nimcada alle oo korkiina ahaatay. nimco ilaahay ayaa rabbi idinku manaystee. nimcada noocaasa xasuusta, nimcadaasa hilmaamina, nimcadaas ku shukriya, nimcadaa mar walba ogaada, nimcadaa ka tarjuma oo ka run sheega. wadkuruu nicmata allaahi calaykum. waa goormee id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum. wakhti aad ahaydeen kuwa cadowyaala ah, iska hor yimaada oo dagaal xarbiya oo ahliya dhex mara. kuwa iska hor yimaada ayaad ahaydeen. id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum. ilaahay ayaa qalbiyaalkiina isku soo dumay. fa asbaxtum binicmatihi ikhwaana. ilaahay nimcadiisaad walaala ku noqoteen. nimcada doolare la siiyey ma aha, nimcada baabuure loo qaybiyey ma aha, nimcada ballanqaad kale oo loo ballanqaaday in kursi loo dhiibo madax laga dhigaa ma aha. nimcada ay alla xaggiisa uga timid ay ku walaaloobeen waa diinta alla subxaana wa tacaala. waa qur'aanka munasalka ah ee rabbi kalaamkiisa ah, waa nebiga laf ahaantiisa salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. faasbaxtum binicmatihi ikhwaanan. nimcadiisa ayaad walaala ku noqoteen. markii horena fiiri, wa kuntum calaa shafaa xufratin min annaar. god qarkiisa oo naara ayaad taagnaydeen. waa isdagaalayseen oo waa isbaabi'inayseen. waxaad iska dhigayseen dad markaa isdhibaateeya. maca daalika god qarkiisa oo naara ayuu ilaah ku tilmaamay dagaalka lagu magacaabo dagaalka xarbiga ee ahliga ah. sidaa darteed ayuu ilaah yidhi waxaad ahaydeen calaa shafaa xufratin min annaar. god qarkiisa oo naar ah. fa anqadakum. allah idinka soo koriyey xaggeeda. ilaahayaa idinka samata bixiyey. waxasaa loogu manaysanaayo waa aws iyo khasraj ee dadka iimaanka leh ee raba rabbigood inay khayrkiisa helaan, jannada iyo nimcada la siiyo. waa inay ku sifoobaan sifaadkaa alla tilmaamaayo subxaana wa tacaala. dadku hadday xaaladaa sameeyaan, khayrkaa iyo wanaaggaa ay ku dadaalaan, diinta alle ay raacaan, waxay noqonayaan kuwa walaala ah. maca daalika muslimka kale waa inuusan danni iyo mala xun u qaadin, khayrka iyo wanaagana uu kula dadaalo. mar walba uu la kulmo waa inuu salaanta islaamiga ku salaamaa. waa inuu dhahaa assalaamu calaykum waraxmatullah. walaalow, afkayga ayaa salaam iyo nabadgelye kaaga timid. indhahayga saasoo kale, gacmahayga, lugahayga, qalbigayga oo dhan waxaa kaaga timid oo kaaga soo baxday salaam iyo badbaado iyo nabadgelyo. inuu qofku sidaa dhaho. midda labaad waa inuu soo booqdo mar allaala marka uu bukado ayuu yidhi nebiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. rasuulku wuxuu yidhi oo kale, haddii uu dhinto waa inuu sagootiyaa. walaaltinimada qiimaha ay leedahay fiiri. xataa xaaladda geerida iyo marka dhimashadu ay timid ayaysan haafil kala noqonin. waa walaalo dhab ah oo maxabba iyo kalsooni ay ka dhaxayso. alla diintiisay ku walaaloobeen. ilaa qabriga uu ka galo ayuu sagootinaa. waa sii raaca. waa inaad sagootisaan oo aad tashyiicisaan ayuu yidhi nebiga janaasadiisa. oo mar allaala marka uu dhintana waa inaad sagootidaa ood raacda. mu'miniinta qabri unka ayaa kala geeya maahane, meel kale ay ku kala baxaan ma jiro. waa sagootiyey markuu ka quustay ee qabriga ciidda lagu shubay ayuu ka soo noqday. weliba taasoo keligeed kuma dhaafina, duco ayuu raacsiinaa. mar walba ayuu u ducaynaa. ee fiiri, waaladiina jaa'uu min bacdihim yaquuluuna rabbana اغfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan walaa tajcal fii quluubina ghilan liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uufu raxiim. xataa
xataa markay qabriyaalka galeen oo ay dhinteen mu'miniinta cajaa'ibta ay leeyihiin iyo diinta sida ay asluubta iyo akhlaaqda wanaagsan u bartay, anshaxa fiican ay u bartay, waxaad ka fahmaysaa ayagoo ciidda lagu guray oo qabriga la geliyey ayayse kaafil ka noqonin, oo mar walba haddana waxay garaadkooda iyo caqligooda uu siiyey inay hilmaamin, ay haddana u duceeyaan waaladiina jaa'uu min bacdihim. dadkii fiicfiicnaa ee wanaagsanaa ee dhintay qubuurta galay markay tageen ka gadaan waxaa yimid kuwo kale, waaladiina jaa'uu min bacdihim maxay dhaheen yaquuluuna rabbana kfir lanaa, ilaahayow noo dembi dhaaf anaga iyo waliikhwaanina aladiina sabaquunaa biliimaan, walaalaheen iimaanka nooga hormaray. ma aha walaalo ay naas isla nuugeen, ma aha walaalay calool iskala soo baxeen, laakiin walaalaha xagga diinkay ula jeedaan. walaalkaa naaska la nuuga ee caloosha la galay hadduu diin alla la waafaqo oo khayrka iyo wanaagga ay ku heshiiyaan oo ilaahay diintiisay iskula socdaan way kasii qiimo badan tahay. laakiin walaaltinimadan la tilmaamaayo ee ay leeyihiin waxaad u dembi dhaaftaa ilaahayow walaalahayn aladiina sabaquunaa biliimaan, oo iimaanka nooga hormaray oo diinta horay u raacay oo khayrka markaa fuliyey, xataa qabriga ayagoo ku jiray u ducaynayaan. qalbigeennana ilaahayow qilli iyo xaqdi iyo xumaan ha u yeelin, xaqdi iyo xaasidnimo ilaahow qalbigeena ha u gelinin, dhanni iyo mala xun oo la daniyo ilaahow qalbigeena ha u gelinin. walaa tajcal fii quluubina ghilla liladiina aamanuu rabbanaa inaka ra'uufun raxiim. sidaasay dhahayaan dadka mu'miniinta ah, saasaa lagu yaqaanaa. qubuurta markay u socdaan ayay sii sagootiyeen, mar alla marka ay jiradeen ayay cisbitaalka iyo guryaha ku soo booqdeen, markay ka hor yimaadeen ayay salaameen. intaasoo dhan walaaltinimada iyo khayrka iyo wanaaggaa laga helaa. marka waa inaan xaaladaa aad ugu dadaalnaa. war diinteenna waa diin wax loo dhiga aan jirin, ayadoo kale aan adduunka lagu arkin, sida ay u qiimo iyo wanaag badan tahay. waxaa la ii soo bixiyey inaan taam yeelo oon dhammaystiro makaarimta akhlaaqda ayuu yidhi ayaa la dhahay nebiga ow kamaa qaal. xaaladahaasoo dhan waxay tilmaamayaan in nebigeenna loo soo diray inuu kaamil yeelo ee uu dhammaystiro makaarimta iyo akhlaaqyaalka kuwa markaa ugu fiicfiican. diintu waxay la mid tahay iyo islaamnimadan sida masalka laga bixiyey guri la dhisay oo la qurxiyey oo la qiimeeyey oo la rinjiyeeyey, albaabaha iyo dariishadaha kulli loo sameeyey, laakiin waxaa laga tegey hal meel oo meel bulkeeti la saaro oo kale ah. intaas ayaa markaa la dhaafoon la wanaajinin. dadku waxay guda galeen inay daawadaan, inay daawasho ugu yimaadaan guriga ay fiiriyaan. maca daalika aad iyo aad ayay ula dhaceen. mid kasta oo yimaadaa wuxuu dhahaa gurigan qiimo iyo wanaag badanaa hadduusan labinada iyo booska bulkeetiga ahaa lahayn. intaa haddii lagu dari lahaa gurigu taam ayuu ahaan lahaa. waa diinta islaamka ama mataqaana diinta nebiga waxyaabaha loogu talagalay in meeshaa lagu dhammaystiro. quruxdeeda ayaa taam noqonaysa. war diinta qiimaha iyo wanaageeda fiiri. rasuulku wuxuu yidhi iyaakum waljuluusa cala turuqaati, war waxaan idinkala digayaa idinka iyo jidadka oo la fadhiisto. war jidadka oo la fadhiista anshax iyo asluub wanaagsan ma ahan ayuu yidhi nebiga. war waddada aad fadhiisataan dhaafa. waxaan idinkala digayaa idinka iyo fadhiga duruqooyinka la fadhiisto. saxaabadu waxay dhaheen maa lanaa buddu min majaalisina, rasuulkii allow annagu kama maaranno inaan fadhiisano. rasuulkii ilaahayo waa labudda oo wax aan laga maarmi karin, waayo nataxaddathu fiiha waan ku dhex sheekaysanaa. weligeen waxaan rabnaa inaan iskaga dhex sheekaysano. rasuulka ilaahayow kama maarmi karnin, adiguna waxaad leedahay jidadka ha fadhiisanina. rasuulku wuxuu yidhi fa ammaa idaa abaytum, haddaad iga diideen factu ariiqa xaqah, jidka xaqiisa siiya ayuu yidhi nebiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. war haddaad iga diideen jidka inaad ka gacdaan ood masaajidada fadhiisataan ama guryihiina aad fadhiisataan ama goobaha muxaadarooyinka aad tagtaan, xaaladaha noocaasa haddaad iga diideen oo aan idin dhahay iska dhaafa jidadka la fadhiisanaayo oo aad dan ii sheegateen oo aad dhahdeen rasuulkii allow kama maaranno waa ku sheekaysanaa, meeshaas ayaan joognaa. hadday xaaladiinu sidaa tahay oo aad diideen waayahee iska fadhiista, laakiin siiya jidka xaqiisa. qaaluu wamaa xaquhu, xaqiisu muxuu yahay ayay dhaheen saxaabada. rasuulka ilaahayo waddada xaqiisu maxay tahay?
tahay war fiiriya xaqa jidka uu leeyahay war qofkii siin kara xaqa jidka uu leeyahay haw fadhiiso kaan awoodi karin oon siin karin ow ka istaag oo gurigaaga gal amase meel kale oo dadban aad jidka ma fadhiisan karo ilaa qof xaqiisa siinaya maahane war xaqiisa maanta waxaan ka dhignay gabdhaha soo mara oo la tuuryeeyo oo la caayo waxaan ka dhignay dadka oo la aflagaadeeyo waxaan ka dhignay qashinka iyo biyaha oo lagu daadiyo rasuulka fiiriye markii la yidhi wamaa xaquhu qaala qadulbasari waa aragga oo la laabo ayuu yidhi salawaatullaahi wasalaamuhu calayh inaad indhaha laabtaan inaadan fiirinin waxyaabaha meesha soo maraaya dumarka meesha soo maraaya